Intaanu muuqaalkeena gudaha u gelin, ha ilaawin inaad channelka subscribe saarto, video like saar, mahadsanid. Anime-geena maanta waxa uu ku bilaabmayaa Siroli uu taageerid badnaa ayaa isaga bay xisbigiisii oo uu ka tirsanaa sababtoo ah maysan siin mushahar ku fiican. Waxaana uu sameeyay xisbi cusub oo ay ku jiraan 3 gabdho ee ugu ururada badnaa. Si kastaba ha ahaatee, UK iyo hubin ka tirsan xisbiga darajada caan ah oo lagu magacaabo Thunderbird, dhammaan xubnahooda way xoog badan yihiin waxayna si fudud u nadiifiyaan godadka ay galaan. Wax walba kuma fiicna shaqada kooxdeed. Marka ay ka baxsan yihiin godka, UK waxa uu dareemay inaanay si cadaalad ah loo siin shaqadiisa. Kadib markii uu hoggaanka ku guuleystay, wuxuu u sheegay xubnaha xisbigiisii inuu doonayo inuu joojiyo shaqada. Thunderbird, hogaamiyihii xisbiga, Simon iyo xubno kale ayaa u sheegay inuu joojiyo hanaaga caynkaas ah sababtoo ah xitaa dagaal kuma biirin oo iska jooga gadaashoodii isagoo qabanaya alaabtoodii iyo hubkoodii. Waxay ku andacoonayaan inay fiicnaan doonaan haddii ay helaan taageero yar. Taasina waa hadalkii ugu dambeeyay kooxda. UK uu ku dhameeyay abitaankiisii kadibna waxa uu caddeeyay inuu ka tagi doono shaqada. Maalintii xigtay, UK waxa uu aaday kooxda dacwoodayaasha si uu iskaga diiwaangeliyo shaqo si uu u dhameeyo buuxinta foomka oo uu dhiibay soo dhaweynta. Madaxa gaduudan ayaa si lama filaan ah soo booday oo si adag u laaday. Waxay ugu yeertay macallin oo markii UK uu arko iyada uu aqoonsaday inay tahay Marina oo uu hagayay ka hor inta aysan galin imtixaankeedii dacwadka. Marina ayaa ugu mahadcelisay UK caawintii uu horey u siiyay, wuxuuna weydiiyay sida ay arrimaheedu ugu socdaan. Waxay u sheegtay inay wax walba si fiican u socdaan, kadibna ay ogaaday inuu xad ku jiro suuqa shaqada. Marina runtii aad ayay ugu faraxsan tahay markay maqasho taas oo isla markiiba weydiisay UK inuu ku biiro xisbigoodii. UK waxa uu tagay inuu la kulmo xubno ka tirsan xisbigeedii oo ay sidoo kale ardaydeedii weheliyaan. Marina, Frank iyo Silk iyo wadaadada ayaa labadoodaba ku faraxsan inay maqleen UK inuu xiiseynayo inuu ku biiro xisbigooda, laakiin waxay weydiiyeen inuu ku fiican yahay ku biirista xisbiga darajada oo bilaabay xirfadiisii. UK waxa uu sheegay inuu taasi ku fiican yahay sababtoo ah xirfadiisii iyo darajadiisii baa aad u sareysa. Waxa uu sheegay inuu lacag badan gelin jiray sida loo galo godka, qaabka loo isticmaalo, sidaas darteed aan wax badan soo gelin godka. Laakiin UK wuu awoodi doonaa inuu badbaadiyo iyaga. Iyadoo taasi jirto, UK wuxuu si rasmi ah ugu biiray xisbigoodii oo waxa uu ogaaday in gabdho ay qorsheynayeen inay dhameystiraan raadinta macdanta birta ee maanta. Waxay aadeen godka si ay u ogaadaan macdanta sirta ah. UK waxa uu dareemay niyad xumo xasuusin sida safarkiisii ku biloomay. Waxa uu sheegay hablaha inay si fudud ugu heli karaan macdanta sirta ee dabaqa 6 ee godka, laakiin waxay u sheegeen inay ka baqayaan inay la dagaalamaan bahalkii madaxda ee dabaqa 5 si ay u dhaafaan. UK waxa uu soo jeedinayaa inay marka hore isku dayi karaan inay ka raadiyaan macdanta dabaqa 4 oo ay ku sii jeedaan godka. Marina waxay keentay ushii ay ayeeyada u ahayd si ay u raadiso daawinada, laakiin taasi way hoos u dhigaysaa socodkoodii. Markii UK uu go'aansaday inuu hoggaanka qabto, wuu tusay gabdhaha faynuus sir ah oo si fudud u ogaan karto daawin kasta oo hoose. Sidaas awgeed waxay si degdeg ah u sahamiyeen godka. UK waxa uu bilaabay inuu dib u xasuusto sidii uu ahaa godkii ugu horreeyay ee uu booqdo isaga iyo xisbigiisii hore ee Thunderbird 5 sano ka hor. Waxaana dagaalyahankoodii siin uga dhaawacmay daawinka. Isla markiiba wuxuu dareemay bahal, wuxuuna u sheegay gabdhaha inay u diyaar garoobaan dagaal. Waxay gaareen gol daanyeer ku sugayaan. Ninka ayaa mid ka mid ah si degdeg ah u toogatay, kadibna Marina ayaa hore u soo yaacday si ay ula dagaasho labada kale. UK waxa uu jirkeedii ku shubayaa sihir si uu si weyn u horumariyo awoodeedii, kadibna daawinka ay uga dhigto daanyeerka si ay u joojiso. Marina si sahal ah ayay uga adkaatay labada bahal weyn, wayna nahaday markay garatay sida ay ugu fududeed sihirka. UK waxa uu sheegay inuu si daran oo Sirola hal mar ku dhuftay qof walbana uu la taasan yahay sababtoo ah si taasir oo hal mar ah la sameeyo waxay u baahan tahay xirfad badan. Wax yar kadib, waxay soo gaareen albaabka laga soo galo dabaqa 2. Kadib markii ay hubiyeen qalabkoodii iyo awoodoodii, waxay u soo dhaadhaceen dabaqa hoose. Si lama filaan ah, koox ka mid ah maadan odayaasha
Diamond ayaa soo weeraray Wareed markeedii si ay ula macaamiisho Sergio Marino. Waxa ay isku dayayaan inay la kulmaan Zambiska si ay u helaan waqti ay ku dhamaystiri rabitaankeedii. UK-na uu tuuray qof walba sihir ilaalinayo si aysan Zambiska xitaa u soo dhowaan karin. Tani waxay siinaysaa waqti ku filan oo ay ku dhamaystirto hibadeedii, waxayna ku bacbisaa Zambiyada sihirkeedii quduus ah. Qof kastana wuu bilaabay inuu ammaano iyada oo uu sheego